kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee Fagaare Production qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo diiday casuumaad uu u soo diray madaxweyne Farmaajo waxa uuna ku yiri hadal cajiib ah ciidamo ka tirsan hay'adda NISA oo Faad Yaasiin ku eedeeyay in uu lunsaday lacag ay mushaar ahaan u lahaayeen wariye Maxamed Ciise oo sheeko xanuun badan ka qoray dhibkii ka qabsaday isbitaalada Xamar kadib markii toddobaadkan gudihiisa ay xaaskiisa ku geeriyootay magaalada Muqdisho maxaa ka jira in Sheekh Sudeys laga qaaday xilka imaamka xaramka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday nin ku lug lahaa weerar ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya qodobadaasi iyo qaar kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar like saar siina share garee muuqaalka warkii oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa caawa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa diiday casuumaad uu u soo diray madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna ku yiri hadal cajiib ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ayaa iska diiday casuumaad ay u fidisay madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo loo soo mariyay xubno ku dhow ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa 25 Juulaay waxa xilka ka qaaday xildhibaanada golaha shacabka xilli uu safar shaqo ugu maqnaa magaalada Dhuusamreeb ee xarunta maamulka Galmudug sida ay inoo sheegeen xubno ku dhow ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya inuu la kulmo Xasan Cali Khayre oo uu raali ka ahaa riditaankiisa isagoona kala arinsanaya xaaladda dalka iyo waliba arrimo kale oo soo cusboonaaday kuwaasi oo faahfaahintooda helin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ka cudur daartay dalabka madaxtooyada isagoona ku wargeliyay inuusan hadda diyaar u ahayn kulanka madaxweyne Farmaajo balse uu dib ka soo sheegi doono haddii uu la kulmi karo iyo in kale wararka qaar ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayre uu ka careysan yahay qaabkii looga qaaday xilka oo la aaminsan yahay in madaxtooyada Villa Soomaaliya ay gadaal ka riixaysay wuxuuna hadda kulamo kala duwan hoygiisa kula leeyahay siyaasiyiinta dalka iyo xubno xildhibaano ah oo isaga taageersan musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre oo 2 cisho ka hor ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa Muqdisho ka bilaabay kulamo siyaasadeed oo bilow u ah ololihiisa doorashada madaxweynaha Soomaaliya sanadka soo aadan hase yeeshee waxa la rumaysan yahay in fiilooyinka siyaasadeed ee hadda la xirxirayo ay dhammaantooda hal meel ku soo biyashubanayaan waana in uusan soo laaban madaxweyne Farmaajo kana waxaan eegaynaa qiso xanuun badan oo ku dhacday wariye Soomaaliyeed oo xaaskiisa ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho wariye Maxamed Ciise ayaa sheeko xanuun badan ka qoray dhibkii ka qabsaday isbitaalada magaalada Muqdisho qoraalkiisa wuxuu ku bilaabay isma aanan lahayn mar walba geerida waa xaq waana qasab inaan ku qanacno qadarta alle balse isma aan lahayn adiga oo qof xaalad degdeg ah ku jira wada ayaa gaarigaaga gurmadka degdega xilli habeen ah laga celin doonaa albaabka hore ee isbitaalka Digfeer kala wareeg kuma hayna ICU way naga buuxdaaye 2 ruux oo ka soo horeysay ayaanba meel u laanahay oo aan soo bixin rabnaa isma aan lahayn adigoo qof xaalad degdeg ah ku jira ayuu isbitaalka Yardimeeli ku dhihi doonaa waa inaad qofkan soo saartaa raajada xabadka jaski scan haddii kale kuma qaabili doono isma aan lahayn adigoo isbitaalka Jazeera ka soo helay raajadii lagu diray ayuu dhakhtar Turki ah inta jawaabta eego ku dhihi doonaa qofkan oksijiin la'aanta hayso ha soo dejin corona Martini kaliya ayuu ku dhihi doonaa isma aan lahayn isbitaalka Martini oo agab caafimaad oo tayo leh ayaalaan ayaa ICU-da iyada oo xiran u tagi doonta oo ruuxna uusan ku jirin haddana shaqaalaha aysan awood u lahayn inay geliyaan ruux xaalad adag ku jira balse aan corona qabin ma gelin karno ilaan uu soo rogaal celinaya isma aan lahayn isbitaalka Soomaali Suudaneys ayaa lagu dhihi doonaa ambalaaska aad gabadha ka dejisay yeesan ka tagin anaga kuma qaabili karnee balse ugu dambeyn ayay ku geeriyootay iyada oo sariirta qolka gurmadka degdega saaran isma aanan lahayn dalkeena gaar ahaan isbitaalada tirada badan ee magaalada Muqdisho ku yaala meel walbana laga xayisiyo ayaa laga weyn doonaa ICU waa qaybta la geliyo qofka xaaladda liidata ku jira kana tirsan isbitaalka haddaba wariye Maxamed Ciise oo bixiyo waraysi ayaa ka sheekeynaya dhibkii uu kala kulmay isbitaalada magaalada Muqdisho iyo sheekadii xanuunka badneyd ee uu la kulmay wax walba habeenka dhacay ahay wax iska qoran oo geeri u socotana ciidanka taamalaha taa in la aamino isbitaalkii markaan tagnaa anagoo gaariga ambalaas ka wadanay yar xitaan waji ahaan garanayo isbitaalka albaabkiisa taagnaa ambalaas kala naga horeysay
ambalaaskii kale baa la baaray waa la sii daayay aniga ambalaaskii ku xigtay baan ahayn oo gabadha xaaska ay saarnayd aniga iyo laba la dhalatay iyo waxaa nala saarnaa caawiye isbitaalka uma ka socday iyo darawalka shanteena baa ahayn iyo xaaska oo xanuunsanayd markaabuu wuxuu yidhi gabadhan maxay tahay emergency-ga waxaan idhi gabadha ICU bay u baahan tahay oo dareemaysaa problemka haysta inay sanbabada ay ka jiraan neeftana ay ku yara adag tahay waan xasuustaa laba gabdhood oo asiga inay caawinayaan ama la shaqaynayaan u malaynaya gadaashii taagnaa oo midookiyaale ay wadato labada gabdhood way nala hadleen inkastoo aanan xasuusan waxay dhahan xaaladda markaan ku jiro marka la eego laakiin wiilka ereyadii yiri baan xasuustay maxay ahay wuxuu ugu yiri ICU-da way buuxdaa niyo ma doonayo inaan ku lugooyo ICU ma helayno weliba laba qof oo ka horeysay oo xaaladan oo kale ku jira isbitaalka dhex jooga oo aan weli ICU-da helin sidaas daraadeed ma doonayo inaan ku lugooyo aan kugula talinayaa inaad kala wareegto aad meel kale u raadiso waa yara fikir waxaan isleeyahay ugu dhow tay ahaan iyo qaabilad ahaan adigana isbitaal ahaan kugu dhow badameel baa noo soo kormaray halkii baan imaaday ambalaasii baan ka tegay qaybtii emergency aan lugteeda ku tegay yardameyna systemkiisa dadka garanaya waa qaybtii emergency inaad la hadashaa oo muuqaalka arkaan ay ku soo jawaabaan meeshii baan kula hadlay yarbaa yimid adiga sakana ama daqiiqada camal ku dhawaad markuu yimid yar Soomaaliya oo asnaan rajeynayo inuu markaan meesha tagay xitaa oo howlo kale inta asna emergency oo ku jiray wuxuu igu yiri jawaabihii hore intuu akhriyay buu yiri iyo iyada xaaladda intuu weedo buu yiri gabadhan iskaanka chestka idinkoo aan soo saaray ma adka wala adkaanaysa inaan qaabilno sidaa daraadeed waa inaad aado isbitaal kale oo iskaanka soo saarto ugu dhowaan ku iskaankaas wuxuu qabtaa marka maxaa loogu talagalay yani in la ogaado xabadka neefta maadaama ay ku aadan tahay sanbabada iyo problemska ka jira in la ogaado waxaan qiyaasay marka isbitaal walba inuu ka cararayo corona ciidamo ka tirsan hay-adda NISA ayaa gadooday kadibna waxay xirteen wadada gasha xarunta ama taliska nabasugida ee Muqdisho ee Habar Khadiija halkaas oo uu ku jiro taliyaha hay-addaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daayir ciidanka nabasugida ah ee gadooday ayaa waxay xirteen daljirka daahsoon ilaa taliska NISA waxayna ka cabanayeen in mushaarkooda uu afka u dhigtay taliska ciidamadan careysan ayaa isaga soo baxay garoonka diyaaradaha ee Dayniile oo lagu qoray inay sugaan amnigiisa ciidankan ayaa sheegay kuna hanjabeen inay gudaha u gali doonaan halka uu degan yahay Fahad Yaasiin waa haddii aan la siinin mushaarkooda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday nin la sheegay inuu la wada shaqeyn jiray dawladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab Farxaan Maxamuud Xasan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa lagu riday xukun xabsi daa'in ah sida uu degmada Beled Xaawo kaga dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ciidamo qarsoon ee NISA ayaa la tilmaamay inay soo ogaadeen fariimo la xiriiray ciidamada dawladda federaalka oo eedeysana Farxaan la wadaagay al-shabaab Farxaan ayaa la sheegay inuu al-shabaab ku biiray 2010 uuna tababar ku soo qaatay xiro ku taala degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay kadibna ka mid noqday ilaalada gaarka ee xabsiyada qarsoon gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqaya xukunka maanta lagu riday markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay maxkamadda mid oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka iyo cadeynta laga qoray eedeysanaha taleefanka ee eedeysanaha iyo horjoogihiisa isku dhaafsanayeen fariimaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Farxaan Maxamuud Xasan uu yahay dambiilo galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u fulan raacfaan wabillahi tawfiiq waxaa jiray dad badan oo baraha bulshada ku baahiyay in Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi laga tiray shaqada xaramka kadib markii uu ka hadlay xiriirka Sacuudiga iyo Israa'iil haddaba maxaa ka jira arintaasi imaamka Kacbada Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi ayaa 4 bishan ka hadlay arin la xiriirtay suurtagalnimada isu soo dhawaanshaha Carabta iyo Israa'iil hadalkaasi waxa ka dhashay falcelin badan oo sababtay in dadka qaar ee baraha bulshada ay baahiyaan in shaqada laga tiray Sheekh Sudaysi arintan la xiriirtay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka iyo mowqifka rasmiga ah ee dalalka Carabta waxa uu kordhiyay cabsida iyo rajada dadka qaar ay ka qabaan in mustaqbalka la arki doono Israa'iil oo
galaangal weyn ku yeelata gobollada carabta gaar ahaan khaliijka. cabsidaasi waxaa laga dareemi karaa baraha ay bulshada ku wada xidhiiraan dadka. haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in shaqada laga ceeriyey Sheekh Sudays? waxaa soo baxay warar ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta baraha bulshada oo si weyn la iskula dhex marayay oo ku saabsan in Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi laga tiray shaqada. wararkaasi ayaa sheegay in khudbadihiisii 4tii bishan ay sabab u ahayd in maamulka boqortooyada uu qaado tallaabo shaqo ka qaadis ah, balse wararkaasi ma aysan xaqiijin warbaahinta dalka Sacuudiga iyo sidoo kale maamulka wadankaasi, waxaana lagu tilmaamay kuwa aan sal lahayn oo aysan cadayn meesha laga soo xigtay. haddii aan tusaale u soo qaadano Sheekh Cabdiraxmaan Al-Sudays wuxuu 48 saac ee ugu dambeysay uu watay howlihiisa oo uu ka hayay xaramka. sida lagu daabacay boga Facebook xaramka, Sheekh Sudays ayaa shalay oo ay taariikhda ku beegneed 15 September kormeer ku sameeyay qaybta biyaha Zamzamka ee lagu shubay dhalooyin si loogu qaybiyo dadka xaramka ku sugan. wuxuu gaar ahaan u kuurgalayay sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda maadaama caalamka iminka uu ka jiro viruska corona. waanageynta warkii caawa aad ka daawanayseen Fagaare Production. waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar, like saar, siina share garee muuqaalka. inta ku kulmi doono warkan warkiisa xiga nabadgeliyo.